shirka golaha dhexe xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee cid ayaa maanta ka furmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Shirkan ayaa ahaa shirkii toddobaad ee isugu yimaadaan xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi, waxaana ugu horeyn shirkayba furay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo goobjoog ka ahaa madashaasi. waxaa runtii sharaf weyn gobolka Togdheer oo ah in maanta lagu qabto kalfadhigii toddobaad ee shirka golaha dhexe ee xisbiga cid. sharaf weyn bay noo tahay gobol ahaan iyo ka magaalo Burco ahaanba. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga madaxdiisa kaadiriintiisa marti sharafta. waa kalfadhigii toddobaad ee golaha dhexe xisbiga cid inuu maanta inoo furmo aad baan ugu faraxsanahay. waa maalin qiimo leh. waxa isku sidkan sanad guuradii 18aad ee xisbiga cid iyo kalfadhigii toddobaad ee xisbiga. taas wuxuu ku tusaysaa inuu xisbigu cud yahay xisbigu ugu da'da weyn maanta axsaabta jirta ee Soomaaliland. daynu nahay reer Soomaaliland waxaynu u baahanahay ama aynu u oomanahay ama aynu mar walba dadaal ugu jirnaa oo xisbiga cud oo hormuud ka yahay inaynu noqono mid oo aynu midnimadeena iyo qarannimadeena Soomaaliland aynu iska mid ka wada noqono. had iyo jeer waxaan ku dadaalnaa inaan tusaale fiican bixino xildhibaanada doonaya inay ka mid noqdaan hoggaanka dalka. siyaabaha hadda aan u aragnay in ay ku habboon tahay aanu soo jeedinayno kulleyna nagaga daya doono. dhankooda iyaguna waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay labada xisbi qaran ee wadani iyo kulmiye. waxaan baarigaynaa sida xisbiga cid uu sharciyadda xeerka hoosaadka xisbiga iyo xeerka axsaabta ururada uu u dhowray ee uu ku jaangooyey waqtigiisii qabsashada shirka golaha dhexe sida Cabdinaasir Madaxda bartan ka sheegayay 18 sano uu jiro. kalfadhigii toddobaad ee shirka golaha dhexe xisbigu inuu dhaco waxay muujinaysaa runtii inuu xisbigu yahay mid ku foogan ilaalinta shuruucda axsaabta iyo ku dhaqanka xeeroosaadkiisa. taariikhda Soomaaliland ay diraysaa xisbiga cid inuu xisbiga ugu daaweynaa dhibaatooyin fara badan iyo turantooyin badan ka soo gaareen muddadii geed socodkii dimuqraadiyadda iyo islaaxa axsaabta Soomaaliland ilaa maanta ay joogno isagana turantooyin badan ay ka soo gaareen oo uu ayaan yahay hayiin yahay dulqaad leeyahay. waxaa kaloo si gaar ah u tiraanaya markaa hogaamiyaha guud ee xisbiga cid mudane Faysal Cali Xuseen odayga qaranka siyaasiga qaranka halyeeyga qaranka. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cid injineer Faysal Cali Waraabe oo madashaasi ka hadlaya xukuumadda ugu baaqay in la cafiyo jabhadda uu hogaaminayo Korneyl Carre. gudoomiyaha Faysal oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii dhawaan ka soo yeedhay taliya Nuux Taani taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland. horta xisbiga cid waxaanu fikradda aawnay 1990 shan qodob baanu qaadanay maalinta. shantaa qodob aan qaaday waxa weeye in horta kow Soomaaliland ay madaxbanaanida ay soo ceshatay ay saa ku taagnaato. waa laba in la sameeyo Soomaaliland furfuran oo magaalo ku soo ururin si hadda Hargeysa lagu soo ururey decentralized system gobol kasta iyo deegaan kasta ay iskeed u korto. saddex in la sameeyo nidaamka welfare-ka ee ilaaliya danyarka oo qofka jooga aan dalkeen lagu helin. maanta golayaasha baarlamaanku sharci darro ku fadhiyaan. termkoodu waa contract 5 sano la kala saxday. shantu markay dhamaato waxay ka baxaan. sharci oranaya ha fadhiyaan ilaa la soo dooray cidda kale ma jirto. sharci wuxuu oranayaa waa in dadka bedelaya dad la soo doortay noqdaan ay noqon dad la soo noomaleeyay oo waxay ka darogtay dib dhala noqdo dawladii hoose oo loo kordhin
oo wax loo macmalin oo loo mahmalin ayaa u garab fadhiyaan oo la madaxweynaha soo agtaagaya subhanallah sharciga cashuurta ku qaadayna muxuu yahay yani shacbi ma jiro haddaba diirtii iyo dhaameelka waa ka tashanayna waxaan doonaynaa insha Allah tacaala mar haddii beeriyo wax keenayaan inaanu na beeshii kasi arday ka soo saddex qof noo keen ana kala dooranayna saddex وعبد القني عبد الله محمود بافو ورك تلفزيون كارتين مقالة برعو.